كيسكي مرحوم حمدي محمد فارح. بسم الله. waxaan ka tacsiyeenaynaa innagoo ka xun lana damqanayno qoyskii marxuumad xamdi geeridii ku timid marxuumad xamdi maxamed faarax 11 bishii September 2020 abaarak 7:00 duhurnimo ayaa warbixin la soo gaarsiiyay saldhigga booliiska degmada Waabari kaasoo ah in la helay meydka marxuumad taala dhanka hoose ee hotel lagu magacaabo Marwo oo ku yaala waaxda maaja degmada Waabari meydka marxuumadda ayaa la geeyay isbitaal Daarushifa kadibna waxaa loo wareejiyay xarunta baarista dambiyada CID halkaas oo looga sii wareejiyay isbitaal Madiina si baarista kiiskan loo sii guda galo eedaysanayaasha kiiskan waxaa kiiskan loo hayaa ilaa 11 eedaysane iyo eedaysanayaal kale oo hadda lagu daba jiro soo qabashadooda ama gacan ku dhigistooda sidoo kale waxa taariikhdu markay ahayd 12 bishii September 2020 laba tuhunsanayaal ay sii deysay maxkamadda awoodda u leh kuwaas oo ku sifeeyay in la tuhunsanayaashaas aysan wax xiriir la lahayn kiiska hase yeeshee la soo qaban karo ama la horkeeni karo cadaaladda goor kasta ee loo baahdo fariin waxaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan ehelada marxuumadii dhimatay xamdi maxamed faarax u cadeynaynaa in baarista kiiskan ay marayso meel wanaagsan sidaas lamad ahna waxaan ummadda ka codsanaynaa in ay naga gacan siiyaan baarista kiiskan isla markaana nagu kaalmeeyaan wax alla wixii xog ah ay la xiriira kiiskan cidii haysa wa ma tantiin wabillahi tawfiiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh